بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jecelahay inaan idinla wadaago kelmado kooban waxaan galabta oo taariikhdu ay tahay 18 bishii saddexaad 2017 waxaan warbaahinta qeybo ka mid ah ka daawaday dhismo cusub iyo ballaadhin lagu sameeyey qeybta gargaarka degdega ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. marka runtii aad iyo aad baan ugu farxay waana soo dhaweeyey waana ku hambalyeynaya cid kastoo hawsha qeyb ka qaadatay. waxaan dhageystay khudbad uu jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Saleeman Xagle Toosiye ayaan dhageystay. nuxurka khudbadda saddex waxyaabood baa iga soo baxay waan jecelahay bal idinkuna inaad ila eegtaan haddii la yidhaahdo. midda koowaad waxay ahayd kow horta bilow ilaa dhammaad khudbadda wasiirku waxay u badnayd ammaan iyo bogaadin fara badan oo uu ku koobay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo. marka iyadoo dee mar walba dadka mas-uuliyiintii marka ay hawl wanaagsan iyo wax fiican qabtaan ay tahay in lagu ammaano lagu bogaadiyo haddana laakiin waxay u muuqatay markii aan dhageystay ciddii dhageysatay iyo ciddii daawatayba iyaguna dareenkaa kule laga yaaba inay ka qaataane yacni bilow ilaa dhammaad khudbaddiisu waxay ku koobnayd ee u badnayd ammaan uu madaxweynihii Somaliland oo keliya ka dhigay cidda qaranka u shaqeynaysa. aniga waxa iga baxay fikirka kow wuxuu yidhi wasiirku madaxweyne adigaana amray inaanu dhismahan dhisno adigaana amray inaanu dhismihii sanadkii hore aanu dhisno adigaana amray inaanu waxaa samayno adigaana amray inaanu sidaa samayno. dee horta madaxweynuhu waa hagaha guud ee qaranka isagu waa astaantii qaranka waana dee markii dowladnimo iyo mas-uuliyad laga hadlayo waa halka ugu sarreysa ee madaxda ah. laakiin madaxweynuhu day to day operationska ama shaqa maalmeedka wasaaradaha iyo hay-adaha qaranka isagu shaqo kuma leh ma maamulo. waxaa ka fiicnaan lahayd inuu yidhaha wasiirku madaxweyne anagoo fulinayna siyaasadii guud ee qaranka ama anagoo ka duuleyna qorshayaasha wasaaradda qaranku ay dhigtay sidaasoo kale ka fiicnaan lahayd. tani waxay u muuqataa marka la eego waa astaamo caano oo lagu yaqaano dowladaha qaar. marka haddaad aragto qof keliya oo la siinayo wax tusaalehaan marka la leeyahay madaxweynihiinbaa lagu celcelinayo waxaa meesha laga saarayaa kow wasaaraddii caafimaadka waxaa meesha laga saarayaa guddidii caafimaadka waxaa meesha laga saarayaa maamulka cusbitaalka waxaa meesha laga saarayaa dowladdii hoose iyaduna kaalinta ku lahayd yacni wixii oo dhan baa meesha ka baxaya. marka waxaa la yidhaahdaa shaqsanata dowla yacni dowladdii baa laga dhigayaa qof keliya qof baa dowladdii laga dhigayaa. marka waa waxyaabo khatar ku ah dowladnimada. dowladaha inta badan sidaas sameeyaana waa dowladaha ay dowladnimadoodu daciifka tahay ee aan hay-ado qaran iyo nidaam kala dambeyn iyo structure shaqeynaya aan lahayn baa iyaguna sidaas sameeya. taas waa qodob. qodobka labaad ee iga baxay khudbadda wasiirku waxay ahayd wasiirku wuxuu yidhi cusbitaalkan waxaa la dhisay waa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ka hadlaya waxaa la dhisay dowladdii Ingiriiska waqtiga ay joogtay Somaliland waa run waqtigaasaa la dhisay. laakiin wasiirku wuxuu yidhi waqtigaa ay dowladdii Ingiriisku dhistay ilaa 2010 oo madaxweyne Siiraanyo oo madaxweyne noqday intii u dhaxaysay waxba cusbitaalka lagama qaban oo horumar lagama samaynin oo isbeddel laguma samaynin. marka aniga waxay noqotay qodob si gaara ii soo jiitay oo maadaama aan xogogaal u ahaa dee xaaladda guud ee waddanka iyo xaaladda cusbitaalkaba oon ka shaqayn jiray oo aan runtii xogogaal u ahaa waxaan isiri meelaha hadalkaasi sax mu ahayn baan isiro hadal ku habboon oo munaasiba mu ahayn. marka dhowr sababood la ogaba kow dee horta 60kii iyo 2010kii dowlado kala dambeeyo fara badan baa soo maray maamulka oo dowladihii Soomaaliya markaynu ku jirnay intii Somaliland jirto 3 madaxweyne soo mareen baa jiray. marka kow 3 madaxweyne meesha soo maray Somaliland dee taariikhdooda horta ceeb bay ku tahay in la yiraahdo
waxba kamay qabanin oo isbedel kumay samaynin. qodobka labaad ee isaguna muhiimkii waxa weeye intaasoo wasiir baa ku horreeyey wasiirkan caafimaadka imika jooga xagla toosiye. intaasoo wasiir baa joogay oo ka aqoon badan oo ka khibrad badan oo ka waayo arag badan oo ka dadaal badnaa baan isleeyahay. marka iyagana in la idhaahdo ilaa 60kii ilaa 2000 iyo markii isagu yimiday cusbitaalka guud waxba laguma korin oo horumar lagama sameyn waxba lagama qaban. iyaduna waa qodob kale oo aan isleeyahay malaha dee taariikhdeena ay khatar ku taho macno dafiraadina way ku jirtaa in taariikhda hore la masaxo iyo in indhaha la iska qabtaana meesha way ku jirtaa. marka waxaan isleeyahay malaha dee intii iyaga lagu hambalyeyn lahaa la odhan lahaa wasiiradii iyo madaxweyneyaashii hore iyaguna waxbay qabteen ninba meel buu soo gaarsiiyey way kala duruufo duwanaayeen oo isku mid ma aha oo duruufta uu la kulmay wasiirka imika jooga iyo madaxweyne siiraanyaha imika jooga way ka duwan tahay duruufidii uu la kulmay cabdiraxmaan axmed cali allah u naxariisto oo madaxweynihii somalilan ugu horreeyey ahaa oo nina meesha ciidan buu ka qaado cusbitaalka guud oo xore ciidan oo jabhad haysatuu ka qaaday nina horumar buu ayaa isaguna mar lasoo gaarsiiyey buu marka isku mid maaha way kala duwan yihiin oo way ku kala duwan yihiin xaggaa. laakiin in la yidhaahdo ilaa 60kii ilaa maanta lasoo gaadho waxba uma dhexeeyaan waxaan isleeyahay malaha qodob isaguna waxa weeya khataroo dee u baahan in laga digtoonaado dowladnimadeena iyo qarannimadeena iyo taariikhdeena iyo dee ummadnimadeena oo dhan baabay taabanaysaa maraan isla haddii la dhaa dee waxba bay nooma dhexayn intaa oo dadkaasoo dhanna taariikhdooda in la dafiray noqonaysaa. taasina waa qodob isleeyahay malaha gef bay ku ahayd meelka dhacna way ku ahayd madaxdii iyo mas-uuliyiintii hore qaranka usoo shaqaysay ninba meel buu soo gaarsiiyey in laga dafiro maaha iyagana. qodobka saddexaad ee ugu dambeeye iga soo baxay wuxuu isaguna ahaa wuxuu yidhi wasiirku waxaa noogu deeqay intaa hebel intaana waxa noogu deeqay wasiir balaayo intaana waxa noogu deeqay wasiir hebel intaana waxa noogu deeqay maayer hebel yacni saasoo kaleo deeqoo dadkii cusbitaalku waa cusbitaal qaranku leeyahay shacabkaa leh muwaadiniintiisa loogu adeegayaa mas-uuliyiinta qaranku hantida ay hayaan iyo dowladnimada iyo awoodda gacantooda ku jirta waxa le shacabkaa leh dhaqaalaha iyagu hayaan iyo lacagta iyagu hayaanay gacantooda ku jirtaa waa cashuurtii laga soo ururiya masaakiinta. marka wasiir hebel marka uu wax qabto ama maayer hebel marka uu wax qabto waa waajib isaga saaran oo ay tahay in looga mahadnaqo waa run waynu isla garanaynaa sidaa laakiin maaha lacagta iyo waxqabadkaas deeq maaha oo lama odhanayo hebel wuxuu ku deeqay intaasuu ku deeqay shacabka somalilan lama odhanayo waayo shacabku iyagaa le waxan deeq maaha deeq waxaa la idhaahdaa waxaanad adigu lahayn marka lagu siiyo ayaa la odhanayaa ama dowlad shisheeye markay wax ku siiso ayaa la odhanayaa waa deeq ama marka cid ganacsade ay wax iyadu gaaro iyadu iska leedahay ku siiso ayaa la odhanayaa waa deeq ama markay hay-adi wax ku siiso ayaa la odhanayaa waa deeq. laakiin wasiirkii loo dirayba inuu isagu soo iibiyo ambalaasyo iyo inuu cusbitaallo dhiso iyo inuu shaqaalaha mushaharkooda keeno haddii uu yidhaahdo aniga intan ku deeqay oo hebelna intan uu ku deeqay hebelka kalena intaasuu ku deeqay fikir saxa ma aha. taas waxay muujinaysaa in meesha ay daciiftay dowladnimadii ay shacabku lahaayeen waana ta ugu muhiimsan dowladda yaale dowladda shacabkaa leh shacab markaa dowladdu mas-uuliyiintu waxa u shaqeeyaan shacabkii u adeegayaal u yihiin. marka wasiirku markuu wax qabto ma odhan karo lamana odhan karo wuxuu ku deeqay shacabkiisii waxaa tusaaleaan imika waxaad arkaysaa biyo la qaybinayo laleeyahy wasiir hebel baa ku deeqay biyaha wasiir hebel haddaanu ka keenin isagoo meel gaara oo uu leeyahay ama ganacsi gaara oo isagu leeyahay ama gurigiisa uu soo iibiyun oo dhan anuu intanaan ku deeqay hantida uu isagu hayay dowladnimaday gacantiisa ku jirtaa deeq maaha dadkaa leh. marka waa in la idhaahdo wasiir hebel intaasuu wasaaraddaas waxay kaga qeyb qaadatay ama dhismaha intaa leeg ama lacagta intaa leeg ama waxqabadka intaa leeg ba kaga qeyb qaadatay waa in la yidhaahdo hawsha socota laakiin lama odhanayo iyagaa ku deeqay oo waayo shacabka laguma deeqayo waxba shacabku iyagaa le waxan iyagayna tahay in la siiyo mas-uuliyiinta qarankuna wixii ay qabanayaan ay qabtaan maaha deeq ay dadka siiyeen ee waa waajibkii loo diray marka horeba. aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxay iga tahay inaan idinla wadaago fikirkaa idinkuna aada eegtaan kulley intiina dhegeysata baa dhegeysata insha allahu tacaala waxaana rajeynayaa in la isa saxo oo dee wixii inaga khaldamaya ama taariikhdeena hore wax yeelaya ama qalbiga dadka wax soo kala dhex gelinaya ama imikaba sida nool yahay wax yeelayana in la iska saxo. marka aada iyo aad baad u mahadsantihiin
wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.